Lil Pump wuxuu jiraa 22 sano YouTube channelkiisa waxa ku xiran in ka badan 17 milyan oo qof. Heesaha uu qaaday Lil Pump waxa uu caansan heesta Gucci Gang waxaana daawadeen in ka badan 1 bilyan oo qof. Heestaasina wuxuu ku noqday qof caan ah waliba social media xiligaasi aad ayaa loo hadalhayay waana shakhsiga aan qarsanin inuu ka tirsan yahay kooxdaasi Illuminati-ga ama Mas'uuliyadda waliba wadacad ayuu u soo maray inkastoo fanaaniinta caalamka ay isqariyaan laakiin isaga uu cadeystay Mas'uuliyadda inuu ka mid yahay wuxuuna soo saaray hees dhameystiran oo ugu magac daray Illuminati waliba waxa inta badan dadka ay dhahaan wuxuu ku biiray kooxdaasi Mas'uuliyadda isaga oo jira 18 sano. Lil Pump heesta Illuminati kadib hada channelkiisa heesaha uu soo geliyo waxa daawadaan 3 milyan oo qof mana helo daawasho ku filan arintaas oo sabab u ah heesta Illuminati wuxuuna ku qasaaray Lil Pump shacbiyad badan midna ogaada kooxdaasi Mas'uuliyadda cida ku soo biirta kama bixi karto sirtoodana lama sheegi karo waan ka tagayaa ama waan ka baxayaa waxay ka dhigan tahay waan isdilayaa waayo cidii isku dayda inay ka baxdo kooxdaasi way dilaan. heesta Gucci Gang ee Lil Pump hadalheynteeda waxa maqlay Eminem sidoo kale magaca Lil waxa soo alifay Lil Wayne wixii Lil ah waxay soo koobi gareeyeen Lil Wayne sida Lil Pump Lil Nas Lil X Lil Bro iyo wixii magaca Lil sheegta. Eminem ayaa wuxuu u arkay Lil Pump inuu leeyahay asluubta hees qaadista Lil Wayne wuxuuna soo saaray waqtigaas oo ay ishayeen Machine Gun Kelly albumka Kamikaze albumkaas ayuu ku soo qaatay Lil Pump iyo Lil X iyo fanaaniin u badan rag iyo dumarba. taageerayaashii Lil Pump ayaa bilaabay inay ku soo mishin gareeyaan albumka iyo heesta isaga lagu soo dhex qaatay magaciisa. Lil Pump oo ka qaaday heesta xaalad nafsi ah ayaa u soo jawaabay Eminem waliba waxa la yaabaa hees uma soo qaadin Lil Pump wuxuu iska soo duubay muuqaal caadi ah isagoo leh waraaciyalka xaafadaan nahay adiga daciif ayaa tahay. Eminem heesaaga cid dhageysanayso ma lahan laakiin hadalkii Lil Pump uu yiri maxaa ka dambeeyay. Lil Pump ayaa booqday Twitter-ka Eminem isagoo ku dhahay waan istaahilaa waxa aad i dhahday. Eminem qofkii wadadiisa ka hor leexda isagana uu iska dhaafaa sidaas ayuu ku soo dhamaaday dagaalkii dhexmaray Lil Pump iyo Eminem.